السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرحي ugu waxyeelada badnaa dhawaanahan ayaa magaalada Muqdisho ka dhacay. Waxa aan ka hadlayno waa wax cadeyntoodii ahayno. Ilaa iyo 6 askari oo labada lugood iyo gacmaha ka go'ay ayuu qaraxa saameeyay oo geeriyooday. Sidoo kale dad aaga maray oo shacab ahaa ayaa iyaguna dhaawac gurmad kala joogsi aan lahayn oo laamaha amnigu ay wadaan ayaa socda. Gaadiidka ambulance-kana aad ayuu halka ugu degdegaya. goobta wax uu ka dhacay waa halka la yiraahdo Al-Naciim oo degmada Dharkiinley ka tirsan. halkaasi waxaa la sheegay inay joogeen ama ay fadhiyeen rag ciidan ah iyo kuwo sidoo kale saaxiib la ah ciidanka. goobtana ay ku qayilayeen. meesha waa meel goolad ah ama luuq ah. waxa u galay nin watay mootaduna speed ayay ku socod sida la sheegay kadibna waa uu isku qarxiyay. nooca mootada ilaa hadda lama xaqiijin karo mid ay ahayd balse waxa laga xusay kaliya inay mooto ahayd. dib ayay laamaha amnigu ka faahfaahin doonaan. waxaana soo gaaray muuqaaladii ugu horeeyay ee dhacdada meesha ka dhacday oo indhaheena aan ku aragnay ka hor inta aan idinka idin soo gudbinin maadaama aan mudan tihiin war xaqiiqa in idin soo gudbiyo. cadeemahaas waxaad ka heli kartaan barta Telegramka halkaas oo muuqaalka aan soo gelinay. saraakiisha amniga ilaa iyo hadda faahfaahin kama bixinin. isku dayadii ugu horeeyay aan sameynay aan kula xiriirnay waxay noo sheegeen inay la yaaban yihiin halka mootolahan qaraha wata ee uu soo maray ilaa intaas oo control sida uu uga soo gudbay. weydiin iyo baaris ayaa bilaabatay waxaas oo dhan laakiin ka horeeyay sida ay saraakiisha amniga inoo sheegeen in dadka loo gurmado. aaga hadda waa la xiray waxa jooga ciidan nooc kasta ah. nabad sugida joogta, booliiska jooga iyo sidoo kale kuwii gaar hayaasha gurgura la yiraahdo ee jagboontiyada isku badbadala. waxa durba sidoo kale baaris uu ku bilaawday agagaarka dadkii joogay oo qaar badan oo kamid ah la qabtay su'aalana uu ku socdo. hase yeeshee qaatilka manaxaha ah ee naftiisa isdhaafiyay ee walaalahan Soomaaliyeed ee qarankooda u shaqeynayayna dilay ayaa dabcan xisaabtii uu adduunka ku mutaysan lahaa aanan helinin sabab la xiriirta maadaama isagina uu ka mid noqday dadka meesha isku qarxiyay. saraakiisha amnigu waxay kaloo sheegeen in kaamirooyinka dib loo hubin doono. aagaas dabcan wuxuu leeyahay kaamirooyin dibna loo raaci doono haddii mootada taarigadeedii la helo raad raac fiican uu noqon karo isla markaana la heli doono halka markii horeba sheekadan ay ka soo bilaabatay ama ka soo uskantay. ilaa hadda lama haayay wax kale oo intaas ka baxsan. waxaan idin la wadaagayna anagana warka hadda soo dhacay ee degdega ah. sidoo kale waxaa jirta arrin aan idin ka hilmaamo oo ah in aaga uu wax ka dhacay jihooyinkiisa oo dhan ay joogaan ciidan. macnaheedu waa tan keentay su'aal badan inuu ka dhasho weerarkan kooxaha geystay ilaa hadda aan la xaqiijin karin kuwa yihiin ilaa weli cid sheegatay malaha. macnaheedu ninkan mootada watay inuu intaas soo jeegboonti soo dhaafay oo uu soo galay goobtan gooladka ah kadibna isku qarxiyay ayaa su'aal dul dhigtay ciidamadii aaga joogay. waxayna u eg tahay sida hordhacan ku helayno in arintan ay galaafan doonto rag badan oo bar kontaroolada uu mootolahan soo gudbay ama soo maray dabcan maamula ama jooga. wixii ka soo kor idinka u horeey mar kale Telegramka. Assalaamu calaykum.